Ilmaha jira 9 bilood sidee uga kobcin kartaa maskaxda? Ilmaha da'dan jira waxay aad u jecel yihiin in la koolkooliyo oo la qaado oo laabta lagu qabto. Wuxuu jecel yahay inuu ku dhegdhego dadka ka mid ah qoyska uu garanayo. Wuxuu ka baqaa ama ka cabsadaa dadka uusan garanayn. Wuxuu ka jawaabi karaa magaciisa markii loogu yeero. Ilmahan wuxuu jecel yahay asaga ayaa soo qabsada. Sida haddii uu arko wuxuu rabo asaga ayaa soo qabsan kara. Ilmaha da'dan jira erayo badan ayuu yaqaanaa. Da'dan ilmuhu wuxuu bilaabaa inuu koobi gareeyo wixii hadal ah iyo wixii dhaqdhaqaaq ah. Ilmahan walxaha wuxuu ku tilmaami karaa ama ku fiiqi karaa farihiisa. Ilmahan maskaxdooda way koraysaa. Wuxuu jecel yahay ciyaarta intaad ka dhuumato aad haddana istusto ama intaad wajiga ka qariso ama wax iska saartid haddana iska qaadid. Da'dan ilmuhu waxay bartaan inay shayada yaryar ku qaadaan far iyo suul. Ilmahan walxaha waxay ku qabtaan hal gacan iyagoo u gudbin kara gacanta kale. Wuxuu eegan karaa ama malayn karaa meeshuu fariisan karo isagoo la caawinayn. Ilmahan dhan walba ayuu gurgurtaa. Wuu istaagaa asagoo qabsanaya darbiyada, armaajada ama sariirta. Maxaa waalidka kaga aadan say u kobciyaan maskaxda ilmaha da'dan jira? Ilmaha yar taabashada qayb ka mid ah jirkooda sida shumiska iyo inaad laabta geliso waxay ku dareemaan deganaansho iyo jacayl ama in la daryeelayo. Ilmahan in badan ayuu gurguranayaa oo uu ku istaagayaa meelahan. Fadlan isha ku hay ilmaha kana fogey wixii khatar ku ah una ogolow inuu si xor ah u ciyaaro. Ilmahan tus sawiraanta walxaha ama shayada si uu u arko meesha aad farta ku tilmaamayso. Ilmahana u barto faraha wax ku tilmaami karo. Sidoo kale waxaad far ugu tilmaami kartaa qaybaha ka mid ah jirkiisa. Ku dhiirigeli ilmaha sida uu u baran lahaa inuu ku qaado walxaha yaryar far iyo suul adoo isha ku haya. Ku qaadida far iyo suul waxay ka shaqaysiisaa murqaha yaryar ee ku jira faraha iyo cumaacunta si uu u istaago u dhawee meel uu qabsan karo si uu ugu kaco.